بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku guda jirnay maraaxil tatawur fikri idaari waxaan soo dhahnay saddex madrasa ayaa ugu muhiimsan madrasada koowaad waxaa lagu magacaabaa almadrasa alclassikiya culimada ugu waaweynna waxaa la lahaa ko Frederick Taylor waa maaragtay engineer oo americana kaasoo mabaadidii uu dejiyey kamid ahaayeen intii aan soo sheegnay qofka labaad ee ugu muhiimsan maaragtay madrasa alclassikiya lahaa waa Henry Fayol waxaa waaye waa muhandis asnaa Francis ah qof muhandis ah waaye Francis ah wuxuuna u qeybiyey waqad qasama wajha nashaat بالمنشأة إلى 6 أقسام marka howlaha shirkada ay qabato wuxuu qeybiyey 6 qeybood qeybta koowaad waxaa lagu magacaabaa acmaal faniya howlo fani ah ama loo baahan yahay gacanta in lagu qabto wahiya camaliyat al-intaaj waa howsha wax soo saarka marka wax soo saarka marka la sameynayo dadka wax soo saarka ay sameynayaan waa shaqaalaha gacanta kula jira howsha marka howshaas waxay u baahan tahay fani waay ama technical waay acmaal faniya ayaa lahaa howsha labaad waxaa waaye acmaal maaliya waa howl qusaysa maaliyada marka wahiya ra'sulmaal waltamwiil walistithmaar waxay diirada saareysaa ra'sulmaalka ama qarashka lagu bilaabayo shirkadaas iyo watamwiil maalgelinta halkee maalgelin qaabka u maalgelineynaa madiina ku maalgelineynaa ama hanti aan leenahay ku maalgelineynaa wal istithmaar maalgashiga markii lacagtii aan helnay halkeen gelineynaa ma waxaan maalgashanaynaa beeraha ma waxaan maalgashanaynaa xoolaha oo transportationka maalgashanaynaa oo ah baabuurta oo gudbiya badeecada marka acmaal maaliya howlaha quseeya maaliyada saddexdaas ayay diirada saaraan howsha saddexaad uu sheegay waxaa waaye markuu qeybinayo howlaha ururka manshada ay qabato acmaal tijaariya waxaa waaye howlo oo ganacsi commercial activities oo ah howlo oo maaragtay tijaari ah sida gaditaanka iyo البيع والشراء والتبادل marka wax soo gadanayso iyo marka wax gadayso iyo maaragtay marka wax kala bedelanaysiin marka bayciga iyo shiraaga iyo waxa waaye kala bedeshada marka howsha afraadna wuxuu dhahay acmaal alwiqaaya wadamaan howsha la xiriirta waxaa waaye ilaalinta iyo damaanad qaaditaanka sida maaragtay ما يتصل بالمحافظة على الممتلكات والأشخاص وحي لحريرة ماركتي إن لا إلاليو ماركتي ممتلكات كوحيا قلب كإلا وليه هي أوركاس أما شركة سيلا هاي إيو أشخاص تدتك كشقة تدتك جودها كجرا مركا تأمين كلاسنا أما إلالينتا أما واردية ماركتي شركة مصنع ama warshada waardiyeya iyo maaragtay shaqaalaha naftirkood markay shaqeynayaan qalabada ku xiran derbiyaasha si maaragtay dabka loogu dheeraado dabka hadduu kaco camal loogu damiyo intaas dhan waxaa waaye acmaal alwiqaayat wadamaan ayaa la hortag iyo in la damaano ama la ilaaliyo howlaha iyo hantida ururka marka howsha ugu dambeysa uu sheegay waxaa waaye acmaal almuxaasaba waxay la xiriirtaa muxaasabada acmaal almuxaasaba oo ah howl la xiriirta muxaasabada ama xisaabaadka watadumu alacmaal alixsaa'iya waxaa ku dhex jirta tira koobyada la sameeyo meeqaan gadnay sanadkan meeqay kordhay faa'iidadeena meeqay kordhay khasaare meeqaana gashay intaas waxaa waaye howlaha la xiriira xisaabaadka marka Henry Fayol wuxuu u qeybiyey howlaha ururka shirkada ay qabato howlo fani ah howlo maali ah howlo ganacsi ah iyo howlo ka hortag ah iyo howlo xisaabaad ah tan ugu acmaal idaariya marka waxaa jirto mid ugu dambeysa acmaal idaariya howlo maamuleed marka
hawshan ayaa maaragtay mida muhiimada aan saarayna ah sida maaragtay qorsheynta iyo nidaaminta iyo amar soo rogida isdaar al-awaamir watansiiq isku xirka warriqaaba ilaalinta. marka Fayol wuxuu xadiday in Fayol qofkan la dhaho oo dadkii ugu horeeyay maamulka wax ka qoray wuxuu xadiday 14 mabda ayuu dhigay ama dejiyay. 14kaas mabda maxay kala yihiin marka 14kaas mabda waxaa waaye taqsiim al-camal, hawsha in la qaybiyo horta hawl walba in la qaybiyo dhowr qayb loo qaybiyo intay ka kooban tahay as-sultatu wal-mas'uuliyya in la helo awood iyo mas-uuliyad. as-sultatu maxaa waaye as-sulta awood power, qofka inuu amar bixiyo waayo, qofka inuu maaragtay xaq u leeyahay inuu qofka kale amro oo tawjiihiyo, taas as-sulta lahaa. al-mas'uuliyya maxaa la mas-uuliyadda waxaa waaye responsibility ama mas-uuliyadda ku fuusha waayo, waa in lagu su-aali karaa waxyaabihii lagu dhiibtay lagu su-aali karaa, taasaa waxaa la mas-uuliyya. marka as-sulta wal-mas'uuliyya. al-musaawaat tan saddexaad wuxuu ka dhigay in musaawaad ama maaragtay isku mid ahaansho equity meesha ay ka jirto, dadka inay isku mid ahaadaan oo qof kale aan laga saraysiinin. wuxuu kaloo sheegay ruuxul ibtikaar in meesha ay jirto ibtikaar ama in maaragtay qofka uu la imaan karo fikrado cusub, marka fikradaha cusub in la dhiirigeliyo. ruuxu tacaawun waa in iskaashi la helo, ay iskaashadaan shaqaalaha iyo maamulka iskaashadaan. النظام والتدريب waa inuu nidaam jira oo maaragtay qaab oo maaragtay nidaamsan ururka loo maamulaa. iyo والتدريب in tababar la helaa, shaqaalaha la tababaraa waxyaabaha ay qaban rabaan, maaragtay maharadaha looga baahan yahay la siiyaa. saas oo kale marka intaas ugu muhiimsan lixdan aan ka sheegnay ayaa ugu muhiimsan, laakiin 14 mabda ayuu dejiyey. halkan waxaan kaga gudbaynaa madrasadii koowaad oo ahayd madrasa al-classikiya oo madrasadii qadiimiga ahayd. waxaan u galaynaa madrasa sulukiya. al-madrasa sulukiya maxaa waaye? al-madrasa sulukiya waxaa waaye madrasada oo qaabilsan, waxay diirada saaraysa suluuga ama qaab dhaqanka bani aadamka ay diirada saaraysa. al-madrasa sulukiya waxay diirada saaraysa qaab dhaqanka bani aadamka. marka madrasa sulukiya sababtay usoo baxday waxaa waaye maadaama madrasa al-classikiya iskuulkii hore aan soo sheegnay aan dhahnay wuxuu diirada saaray wax soo saarka iyo wuxuu diirada saaray shaqaalaha in maadi ahaan loo dhiirigeliyo, gunadii on loo kordhiyo hadday wax qabtaan. laakiin waxaa dhacday in maaragtay xiriirkii oo shaqaalaha iyo dadkii ururkaas ka lahaa uu xumaado. sa'at al-cilaaqaat bayna asxaab al-camal wal-caamiliin, shaqaalihii iyo dadkii shirkadaas ka lahaa xiriirkooda xumaaday. sababtuna waxaa waaye shaqaalihii bani aadan ahaan loolama dhaqmaba, waxaa loola dhaqmaa inay qalab ay yihiin oo wax un lagu fishanayo kadibna lacag la siinayo laskaga tagaayo. marka xiriirkii xumaaday. walidaa faqad ja'at xarakat al-cilaaqaat al-insaniya, marka meesha waxaa ka dhashay in ay imaado xarakadii oo xiriirka bani aadamka. waxay diirada saartay xiriirka bani aadamka iyo qaabka bani aadamka loola dhaqmo iyo qaabka loo dhiirigeliyo. keliya ma aha in gunada iyo dhanka maadiga laga fiiriyo, waa in dhanka ruuxiga iyo qofka sharaftiisa iyo karaamadiisana la fiiriyo. waxay imaaday madrasadan fi acqaab al-harb al-caalamiya al-ula ee dagaalkii koowaad ee dunida, حيث أثارت اهتماما بالعلاقات الإنسانية. waxay diirada saartay ihtimaam siisay xiriirka u dhaxeeya bani aadamka وركزت على عدة مبادئ من أهمها. marka مبادئda ay diirada saartay waxaa waaye العنصر البشري. عنصر البشري waxaa waaye bani aadamka هو الدعامة الأساسية والثروة الحقيقية للعملية الإنتاجية. waxaa waaye mida maaragtay ku tiirsan yahay ama asaaska u ah iyo tharwada ama hantida xaqiiqiga ah ee maaragtay wax soo saarka. haddii wax soo saar aad rabto waa diirad inaa saartaa bani aadamka, diirad inaa saartaa, taas ayay maaragtay diirada saartay xarakadan. marka xarakadan waxay kaloo diirada saartay al-ihtimaam bixaajati al-fard wa dawaafici, in ahmiyad la siiyo
qofka waxa ku riixayo hoola inuu sameeyo iyo dantuu u baahan yahay, dantuu leeyahay waa in loo sameeyo. hadduu gaajeysan yahay gunada loo kordhiyo, haddii maaragtay reerkiisa uu ka xanuunsanayo loo daaweeyo, sharafta uu rabo la siiyo, iyo waxyaabaha ku riixayo hoolahan inuu sameeyo in maaragtay la fiiriyo kabacdina la dhiirigeliyo. in alfarda yumkin an yuraaqiba nafsahu daatiyan duna raqiib, waxaa suuragal ah qofka inuu is ilaaliyo si asoona la ilaalinayn. marka muhiima mar walba in la kor joogo oo wax walba saan samey loogu dhaho, si naftirkiisa is ilaalin kara. in alfarda tamuuxun bitabcihi wayumkinuhu an yakuna khalaaqan mubdican, qofka caadiga ah waa qof damac leh, mar walba damaciisa uu sareeyo, dabeecad ahaan damaciisa uu sareeyo. waxaana suuragal u ah inuu noqdo qof oo fikrado cusub la imaanayo, oo mubdic ah, oo creative ah, oo wax cusub mar walba la imaanayo. alihtimaam biqiyaas macnawiyaat alcaamiliin, waa ahmiyad in la siiyo maaragtay macnawiyaadka ama ruuxa maaragtay shaqaalaha, qaabka maaragtay macnawiyaadkooda uu yahay iyo dareenkooda in diirad la siiyo. wadafciha naxwa alijaabiya, mar walbana in qaabka fiican ama positive sideka loo maaragtay riixa ama qeybta wanaagsan maaragtay loo riixa. marka saan ujeedno madrasadan intaas ayay diirada saartay. madrasatu nudum waa madrasada saddexaad. hadda waxaan kasoo hadalnay madrasa classikiya, madrasa cilaaqaat alinsaniya. tan saddexaad waxaa way madrasatu nudum oo ah madrasada nidaamka. wax walba waxay leedahay nidaam, waa in lagu sameeya, waa in nidaam lagu dhisaa, systemka ayay ictimaaday. النظام marka maxaa waaye? النظام waxaa waaye cibaara can majmuuca min alcanaasir aw alanzima alfarciya, waxaa waaye sets ama maaragtay majmuuca ama koox oo cunsuro ah waaye, koox isla jirta ama nidaamyo oo farci ah waaye, aw mukawanaad ama mukawanaad waxyaaba ay ka kooban tahay waaye. tatafaacal fima baynaha, marka wax isla jiro ama wax kale hoos imaanayo, laakin tatafaacal fima baynaha way isla maaragtay tafaaculaan ama way isla fangalaan, bxayثu anaha fi xaraka daa'ima min ajli taxqiiq hadaf mucayan. mar walbana waxaa waay dhaqdhaqaaq sii socda ayaa meesha ka jira si loo gaaro hadafka mucayanka. marka nidaam markaan dhahno waxaa tusaale ahaan usoo qaadan karnaa bani aadamka naftirkiisa system waaye, asidhan system waaye. systemkaasna waxaa waaye dhowr system isku dhex jira waaye. digestion system markaan soo qaadano waa dheefshiidka waa nidaamkaas wuxuu leeyahay mudkhilaat mukhrijaat ayuu leeyahay, waxyaabo gala waxyaabo. marka dheefshiidka nidaam waaye. qaabkan hawada u qaadanayno, tanafuska u qaadanayno, hawada u qaadanayno waa maaragtay nidaam waaye. maskaxdan gooniyeed nidaam waaye, beerka naftirkiisa gooniyiis nidaam waaye. qaabkan saxrada iskaga soo saarayno digestion systemka ayuu hoos imaanaya. marka waxaan u qeybin karnaa bani aadamka dhowr andimo isku dhex jirta. dhowrkaas andimo ayaa isla shaqeynaysa. markay isla shaqeeyaan kabacdi waxaa soo baxayo bani aadamkii ayaa soo baxayo. marka nidaamka taas ayaa tusaale usoo qaadan karnaa. dhiiga camal nidaam uu leeyahay. marka 9 nidaam ayuu ka kooban yahay bani aadamka. 9kaas nidaam marka laisku daro ayuu shaksiga noqonaya. marka madrasatu nudum waxay diirada saartay nidaam, wax walba qaab nidaama inay ku socdaan. marka nidaamkaas markay ku socdaan hadaf mucayana in laga leeyahay. anwaac nidaam, noocyada u qalqeybsamo nidaamka. ko waxaa waaye annudum almaftuuxa, nidaamyo oo maaragtay furan. nidaamyada furan waxaa waaye wahiya nudum alati tatafaacal maca albii'a alkhaarijiya baxaysu tu'athir fiha wa tata'athara biha. marka waa nidaamyada maaragtay u furan bay-ada oo khaarijiga, bay-ada banaanka ah, waana la tacaamulaan, waana maaragtay saameyn ay ku yeeshaan, ayagana saameyna lagu yeeshaa. tusaale ahaan qofka ka shaqeynaya suuqgeynta ururkana qeyb uu ka yahay, banaankana uu la tacaamula, dad banaanka jooga ayuu wax ka gadaa. alanzima almuqlaqa waa nidaamyo maaragtay xiran, wahiya alanzima alati tumathil daa'ira muqlaqa maca nafsiha baxaysu tajid tafaaculaatiha dakhiliya lilnidaam maca waxdaat almukawanaat laha. marka nidaamyo gudaha waaye, dad banaanka tacaamul maalaha, sida maaragtay xisaabaadka ururka gudihiisun bay ku dhacaan. marka banaanka dad jooga badanaba xiriir lalama leh ama
wax soo saarka camal qayb kamid ah banaanka laga keeno laakiin wax soo saarkii gudihi ayuu ka dhacaa ururka gudihiisa marka nidaamyada labadaas loo qeybiyo mid furan iyo mid xiran عناصر النظام المفتوح nidaamka markuu maftuux yahay banaanka xiriir uu la leeyahay maaragtay عناصرtiisa inta uu ka kooban yahay mudkhilaad waxyaabo gala inputs waay waxyaabo la geliya الأنشطة والعمليات التمويلية iyo maaragtay shaqada la sameeyo عملياتka processka ka dhaca iyo مخرجات النظام output waxa kasoo baxa iyo البيئة بيئة environment iyo تغذية مرتدة feedback ama jawaabta laga helo mudkhilaad salaam marka wax soo saaran ka wacmal marka soo saaran mudkhilaad waa ina maaragtay xarag aan helna xaragii أنشطة والعمليات dhacaysa waxa la gelinayaa warshadii waa la soo saaraya مخرجاتka maxaa soo baxayo waxaa soo baxayo كويه soo baxay البيئة بيئadii la dhaqmayo التغذية مرتدة markii la gado customer ama client-iga say u arkaan ma koobahan ma faalinayo haday faaliyaan waa arin fiican marka intaas waay nidaamka intaas uu ka kooban yahay casharkana maanta intaas ku soo gabagabeyn. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.